wakaaladda wararka Iran oo ku dhow ilaalada kacaanka Islaamiga ee Jamhuuriyadda Iran ayaa warisay in ay jiri doonaan falcelin aan la mahadin haddii dowladda Mareykanku ay sida burcad badeed oo kale ula dhaqanto maraakiibta Iran leedahay ee shidaalka u sida dalka Venezuela. sargaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay Reuters in toddobaadkii la soo dhaafay Mareykanku uu ka fikirayay tallaabadii uu ka qaadi lahaa maraakiibta Iran ee shidaalka u sida dalka ay xasaradu ka ogan tahay ee Venezuela. qaybaha shidaalka ee Iran iyo Venezuela oo ah dalal xubno ka ah ururka ku boobay shidaalka ee OPEC ayaa waxaa saaran cunaqabataynta Mareykanka. mas'uul ka tirsan maamulka Trump waa uu diiday inuu sheego tallaabooyinka la qiimeeyay in laga qaadayo maraakiibta Iran oo gaaraya ilaa 5 markab, laakiin wuxuu sheegay in arrimo dhowr ah loo bandhigi doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump si uu u kala doorto. haddii Mareykanku sidii burcadbadeedii uu ku talagalo in uu amni darro ka abuuro biyaha caalamiga ah, waxa uu u bereeri doonaa khatar halis ah oo hubaal ahaana taasi ma dhici doonto. falcelin la'aan ayay warisay wakaaladda wararka Iran. Venezuela iyo Iran labaduba waa dalal madax bannaan oo lahaan jiray yeelana doona xiriir ganacsi, ayay wakaaladdu ka soo xigatay afhayeenka dowladda Iran Ali Rabici. badeeco ayaan ka soo iibsan karnaa waana u iibgeyn karnaa ayuu yiri mas'uulkaasi, waana in aan shidaalkeena ka iibinaa waxaan heli karnaa qaab aan ugu iibino ayuu yiri Mr. Rabici, isagoo aan bixinin faahfaahin ku saabsan maraakiibta shidaalka qaada ee ku wajahan dalka Venezuela. aqoonyahano taxliiliya siyaasadda Iran ayaa soo jeediyay in xukuumadda Tehran ay ka argoosan karto maraakiibta Mareykanka ee gacanka maraya haddii Mareykanku uu qaado tallaabo ka dhan ah maraakiibta Iran ee shidaalka u sida dalka Venezuela. ciidanka badda Mareykanka iyo xulafadiisa ee jooga gacanka Persia waxay qatari ka soo gaari kartaa nooc kasta ee xadgudub ah ee ka dhan ah madax bannaanida Iran sida sharciga ah ku maraya biyaha caalamiga ah ayuu soo Twitter-gareeyay Mahdi Mohammed. ka hor inta uusan go'aankan qaadan Donald Trump waa inuu saaxiibkiisa Boris Johnson weydiiyaa waayo aragnimada maraakiibta Britain ayuu yiri mas'uulkaasi. Iran ayaa sanadkii la soo dhaafay la wareegtay maraakiib sidataha calanka Britain kadib markii ay ciidamada Britain qabteen markab ay leedahay Iran kaasi oo marayay biyaha caalamiga ah waxa ayna ku soo xireen jasiiradda lagu magacaabo Gibraltar. waxaana markabkaasi u siday dalka Syria shidaal sida ay sheegeen. dowladda Britain waxa ayna ku andacootay in Syria ay cunaqabateen saaranta isla markaana aan loo ogoleen inay galaan ama se ay ku xirtaan maraakiibta sida shidaalka. markabkaas oo la baxay Greece One Panama ayaa waxa uu ka diiwaan gashanaa dowladda oo ka jawaabaysa markabkaasi ay soo xiratay isla markaana ay soo qabatay oo ka diiwaan gashan dalka Britain, kuwaas oo ay Iran sheegtay inay u qoofalan yihiin markabka ku xiran jasiiradda Gibraltar. waxayna dowladda Iran iyo tan Ingiriisku markii dambe ay ku heshiiyeen in labada markab la isu daayo. afhayeenka Iran Mr. Rabici oo hadalkiisa sii wata ayaa Donald Trump waxa uu sheegay in ka hor inta uusan wax go'aan ah qaadan uu la kulmo isla markaana uu wax ka weydiiyo arsashada Iran saaxiibkiisa Boris Johnson.